Lamaanihii qarniga, lamaanihii isbuuca, Ilhaan iyo Sidiiq waa kuwo ka yaabsaday guud ahaan Soomaaliya. Sidiiq ayaa ilinta ceshan waayay markii uu arkay gabadhii uu dunida ugu jeclaa, taas oo hortiisa joogta iyadoo xiran dharkii arooska. Ilmo badan ayaana ka qubanaysay indhihiisa, taas oo keentay in ay kantarool weyso marwadiisa. Waxaana la yaab, fajac iyo amakaah ku noqday dhammaan kasoo qaybgalayaashii xafladda arooska Sidiiq iyo Ilhaan. Wixii meesha ka dhacay, Soomaalida intooda badan ayaana ka falceliyay arooskan, kaas oo si qiiro leh u ilmeeyay saygii hantay Ilhaan. Wuxuu ahaa aroos la yaab leh, aroos qiiro badan. Alla dunidu hadima badana, kolba wiilku ma waxbuu xasuustay. Dadka qaar aad bay ula yaabanaayeen waxa halkan ka dhacay, laakiin hubaasha ah inuu yahay geesi muddo dheer u soo samray inuu hanto jacaylkiisa. Waxaa laga yeeshay Sidiiq iyo Ilhaan waraysigan soo socda, kaas oo wax badan looga weydiiyey xiriirkooda iyo sababtii keentay inuu la ilmeeyo. Waa kan Sidiiq oo hadlaya. hagaag waxaan joogaa hoyga ay ka degan yihiin laba lamaane oo dhowaan iscalmaday ee calafna isku yeeshay, Sidiiq iyo Ilhaan. waxaan jeclahay in aan waraysi kooban aan la yeesho. waraysigaasi waxa uu ku qotomaa muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey, kaasoo saameyntiisa yeeshay. waxaana muuqaalkaasi kasoo muuqday caruuska oo markaasi la ilmeeyey xilli damaashaadkiisa arooska uu socday, marwadiisana ilinta ee ka tirtiraysay. kusoo dhawow telefishinka SBS. ugu horeyn ka waran dareenkaaga haddii aad dib u celiso xusuustaada, xilligaas maxay ku saleysneed ee ilintii kusoo dhaaftay? aad baa u mahadsan tahay Yuusuf Carab, waana kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad igu soo booqatay gurigayga. walaalow ilintaas waxay ahayd ilin ku saleysan, ilin farxadeed bay ahayd, ma ahayn ilin la xiriirta murugan iyo wax la mid ah. mana ahayn ilin la xiriirta doqonnimo iyo waxa weeye wax maaragtay aniga xaggayga ka jiray oo dhiba. marka waxaan dhihi karaa waa ilin ku saleysnayd dareenka farxadda lahaa oo ii muujiyeen dadkii kasoo qaybgalay xalfadeeda arooska, dadka kasoo shaqeeyey. wax anigu aan maaragtay aan kantarooli karay ama aan xadidi karayna ma ahayn. waa dareen ay iga keentay xalfadeedii arooska. markii muuqaalkaasi uu ku baahay baraha bulshada, Soomaalida siyaabo kala duwan ayay u arkeen. laba qodob ayaana loo badinayaa. marka ugu horeyso, Soomaalida waa dhif iyo naadir inay ilin mataqaanaa meel fagaara ah xaaskooda ama afadooda ay la ilmeeyaan, waa dhif iyo naadir. midda labaad, xiisaha gaarku yeesho waxay tahay reemuduga oo aan lagu ogeyn jiljileec. markaas ayay falcelintii ugu badneed ay ku baahday. labadiina si toos ayay kuu saameynaysaa. maxay tahay jawaabta aad bixinaysid? jawaabta aan bixinaya waxay tahay inaysan dadku ahaan dad maaragtay u fikray si khaldan, ama dad uga falceliya wax walba arkaan si xun, ay ka fiiriyaan dhanka wanaagsan, mar walba wax fiirinayaan. ilaahay subxaanahu watacaala iyo diintiisa islaamka labaduba waxayna fariyaan wixii wanaagsan in la qaato, wixii xunna laga tago. ma dhihi kara anigu dee wax aan diinteeda islaamka ogolayn inay bulshada ceeb la noqdaan, waa xoogaa laga fiican yahay. wixii diinta islaamka ogoshahay qofkan waa inay la noqdaan wax wanaaga. anigu dareenka aan muujiye ma aha dareen dhib ku keenaya diinteena islaamka ama saameyn ku yeelanaya. marka waxaan isdhihi lahaa dadkan sida khaldan uga falcelinaya inay yihiin dad qalbigooda iyo damiirkoodu intuba ay angegeen, ose wax naxariisa ku jirin iyo wax jacayl ah. marka maxaa ku micneyn kartaa adiga? dareenkaas waxaan ku micneyn karaa dareen farxadeed inuu yahay. dadka sida khaldan uga falcelinayana waxaan ku micneyn karaa inay yihiin dad aad aragtidooda u liidato. marka maxaana la wadaagi kartaa xusuustaada waayeed intii xiriirkan uu soo socday? maxaad nooga sheegi kartaa waqtiga uu qaatay inaad xiriirkan soo afmeerta? wallaahi waqti aad badan buu qaatay, muddo 5 sano oo ku dhow weeye. waxaan kaloo oran lahaa dee qofku wuu dareemi karaa qofka markaa meel kale ku kala nooshihiin, qofkii makaa tagay makula joogaa, qofkii qof kale kaa doortay, asagii kalsooni makuu qaba, waxyaala badan baa isweydiinaysaa. marka riyadaas aad ku riyoonayso markii aad ku guulaysatid wax walba oo markaas kula gudboon ama wax walba oo
naftaadu ay sameynayso dee cidna kala tashan maysid. marka telefishinka SBS wuxuu fursad kuu siinayaa inaad hal eray aad ku koobto xiriirkaaga ee maanta bilowga ah oo runtii maalmihii ugu horeeyey oo ilaahay calaf isugu keendara adigii iyo marwadaada. marka ereygaas aad dhahayso maxaa ka mid ah? ereygaan dhahayo wuxuu yahay aan kusoo koobayo in dadku noqdaan dad waxa weeye xagga lamaanahooda u jilicsan rag iyo dumarba, dumarkuna inay u dabacsanaadaan raggooda, ragguna u dabacsanaadaan dumarkooda. waliba maadaama anigu aan nin ahay oo fariinta aan ragga u diriyaa waxay tahay inaysan is oran ninkan waxa weeye naagta u ooyaya ama qofka dumarka u ooyaya ma nin doqonaa, laakiin ay ka fiirshaan dhanka wanaagsan ah qofkan wax walba waa farxad ugu muujin kartid lamaanahaaga, waa mid saameyn ku yeelan doonta noloshaada dambe. qofkuna sida aad ugu muujiso dareen farxadeed iyo jacayl bulshada dhexdeeda buu asna kugula noolaanayaa. marka fariinta aan u dirayo anoo hadalkayga soo gaabinaya waxay tahay inuu qof walba oo waxa weeye dunidan ku nool oo lamaane iyo guur ku haminaya inuu noqdo qof dareenkiisa iyo jacaylkiisa ku muujiya si farxad leh. ugu dambeyn telefishinka SBS wuxuu ku siinayaa fursad ah inaad cid u mahad celiso. arooskaagii yaad uga mahad celinaysaa? arooskayga mahad celintiisa kama wada gaari karo, boqolaal qof dad kor u dhaafayaa ka qayb qaatay, laakiin waxaan u mahad celinayaa qof walba oo ka qayb qaatay arooskaygan, hadday tahay labadeeda faamilka gabadha iyo faamilkayga labadaba, asxaabtayda oo aana kala reebayn, laakiin dadkii sida khaaska ah arooskayga uga shaqaynayay oo qof walba oo TV-gan daawado uu dareemi karo qaybta uu ka qaatay. waxaan leeyahay mahad celintu qof walba fadhigiisa bay kusoo gaaraysaa. aad baan u mahadsantiin. hagaag waxaan joogaa hoyga ay ka degan yihiin laba lamaane oo dhowaan iscalmaday calafna isku yeeshay, Sadiiq iyo Ilhaan. waxaan jeclahay in aan waraysi kooban aan la yeesho. waraysigaasi waxa uu ku qotomaa muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey kaasoo saameyntiisa yeeshay, waxaana muuqaalkaasi kasoo muuqday caruuska oo markaasi la ilmeeyey xili damaashaadkiisa arooska uu socday, marwadiisana ilinta ee ka tirtiraysay. kusoo dhawow telefishinka SBS. ugu horeyn ka waran dareenkaaga haddii aad dib u celiso xusuustaada xiligaas maxay ku saleysneed ee ilintii kusoo dhaaftay? aad baa u mahadsan tahay Yuusuf Carab, waana kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad igu soo booqatay gurigayga. walaalow ilintaas waxay ahayd ilin ku saleysan ilin farxadeed bay ahayd, ma ahayn ilin la xiriirta murugan iyo wax la mid ah, mana ahayn ilin la xiriirta doqonnimo iyo waxa weeye wax maaragtay aniga xaggayga ka jiray oo dhiba. marka waxaan dhihi karaa waa ilin ku saleysnayd dareenka farxadda lahaa oo ii muujiyeen dadkii kasoo qaybgalay xalfadeeda arooska, dadka kasoo shaqeeyey. wax anigu aan maaragtay aan kantarooli karay ama aan xadidi karayna ma ahayn, waa dareen ay iga keentay xalfadeedii arooska. markii muuqaalkaasi uu ku baahay baraha bulshada, soomaalida siyaabo kala duwan ayay u arkeen. laba qodob ayaana loo badinayaa. marka ugu horeyso, soomaalida waa dhif iyo naadir inay ilin mataqaanaa meel fagaaro ah xaaskooda ama afadooda ay la ilmeeyaan, waa dhif iyo naadir. midda labaad xiisaha gaarku yeesho waxay tahay reemuduga oo aan lagu ogeyn jiljileec. markaas ayay falcelintu ugu badneed ay ku baahday. labadiina si toos ayay kuu saameynaysaa. maxay tahay jawaabta aad bixinaysid? jawaabta aan bixinaya waxay tahay inaysan dadku ahaan dad maaragtay u fikray si khaldan ama dad uga falceliya wax walba arkaan si xun, ay ka fiiriyaan dhanka wanaagsan, mar walba wax fiirinayaan. ilaahay subxaanahu watacaala iyo diintiisa islaamka labaduba waxayna farayaan wixii wanaagsan in la qaato, wixii xunna laga tago. ma dhihi kara anigu dee wax aan diinteeda islaamka ogolayn inay bulshada ceeb la noqdaan, waa xoogaaba laga fiican yahay. wixii diinta islaamka ogoshahay qofkan waa inay la noqdaan wax wanaaga. anugu dareenka aan muujiya ma aha dareen dhib ku keenaya diinteena islaamka ama saameyn ku yeelanaya. marka waxaan isdhihi lahaa dadkan sida khaldan uga falcelinaya inay yihiin dad qalbigooda iyo damiirkoodu intuba ay angegeen, ose wax naxariisa ku jirin iyo wax jacayla. marka maxaa ku micneyn kartaa adiga? dareenkaas waxaan ku micneyn karaa dareen farxadeed inuu yahay. dadka sida khaldan uga falcelinayana waxaan ku micneyn karaa inay yihiin dad aada aragtooda u liidato. marka maxaana la wadaagi kartaa xusuustaada waayeed intii xiriirkan uu soo socday? maxaad nooga sheegi kartaa waqtiga uu qaatay inaad xiriirkan soo afmeerta? wallaahi waqti aada badan buu qaatay, muddo 5 sano oo ku dhow weeye. waxaan kaloo oran lahaa
dee qofku wuu dareemi karaa qofka markaa meel kale ku kala nooshihiin qofkii ma kaa tegay ma kula joogaa qofkii ma qof kale kaa doortay asagii kalsooni ma kugu qaba waxyaala badan baa isweydiinaysaa marka riyadaas aad ku riyoonayso markii aad ku guulaysatid dee wax walba oo markaas kula gudboon ama wax walba oo naftaadu ay sameynayso dee cidna kala tashan maysid. marka telefishinka SBS wuxuu fursad kuu siinayaa inaad hal eray aad ku koobto xiriirkaaga ee maanta bilowga ah oo runtii maalmihii ugu horeeyey oo ilaahay calaf isugu keendara adigii iyo marwadaada marka ereygaas aad dhahayso maxaa ka mid a? ereygaan dhahayo wuxuu yahay aan kusoo koobayo in dadku noqdaan dad waxa weeye xagga lamaanahooda u jilicsan rag iyo dumarba dumarkuna inay u dabacsanaadaan raggooda ragguna u dabacsanaadaan dumarkooda waliba maadaama anigu aan nin ahay oo fariinta aan ragga u diriyaa waxay tahay inaysan is oran ninkan waxa weeye naagta u ooyaya ama qofka dumarka u ooyaya ma nin doqonaa laakiin ay ka fiirshaan dhanka wanaagsan oo ah qofkan wax walba waa farxad ugu muujin kartid lamaanahaaga waa mid saameyn ku yeelan doonta noloshaada dambe qofkuna sida aad ugu muujiso dareen farxadeed iyo jacayl bulshada dhexdeeda buu asna kugula noolaanaya marka fariinta aan u dirayo anoo hadalkayga soo gaabinaya waxay tahay inuu qof walba oo waxa weeye dunidan ku nool oo lamaane iyo guur ku haminayo inuu noqdo qof dareenkiisa iyo jacaylkiisa ku muujiya si farxad leh. ugu dambeyn telefishinka SBS wuxuu ku siinayaa fursad ah inaad cid u mahad celiso arooskaagii yaad uga mahad celinaysaa? arooskayga mahad celintiisa kama wada gaari karo boqolaal qof dad kor u dhaafaya ka qayb qaatay laakiin waxaan u mahad celinayaa qof walba. asxaabta aynu jecelnahayow ha hilmaamina fadlan like and share iyo subscribe dhammaantiin waa mahadsantihiin waa asxaabtii talo iyo tigaad cashaq oo idin leh nabadgelyo. Katira